waxa la sameeyay amaba la ikhtiraaqay sanadii 1915 waxay wacdara ka dhigtay dagaalkii koobaad ee adduunka waxayna si weyn u soo caan baxday xilliyadaasi iyadoo Soomaalidaano ay ku xasuusto ama Soomaalidan ay soo gaadhayba markii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu Ingiriisku ku weeraray maanta waxaynu ka hadlaynaa daawadayaal diyaaradan oo loo yaqaan Jenny taas oo 100 sanadood ka hor adduunka caan ka ahayd si weyn ugu soo shaabaxday dagaalkii koobaad ee adduunka diyaaradan Jenny waxyaabaha ay diyaaradaha kaga duwan tahay waxa kamid ah horta waa diyaaradii ugu horeeyay caalamka laga sameeyo riishada ama baan ilaahdee marawaxadeeda gacanta ayaa lagu shidi jiray inta kadib ayaa matoorka lagu kicin jiray iyadoo kadib sida lagu istaaray makiinad haruudha imika dhulka Soomaalida taala ee gacanta lagu shido ama birta lagu wareejiyo xitaa may soo gaadhin heerkaas oo kale gacanta ayaa qofka ku wareejin jiray marka gacanta lagu wareejiyo kadib waxa iman jiray in diyaaraddu ay istaaranto sidaan ay ku duusho taas ayaa la isku aamini jiray oo xitaa la isku weerari jiray hadda garo imika dadku waxa bay ka warwaraanba oo ay siraado waydu ku dhiman diyaarad ayar furaha oo la darayo qofku uu istaarayo diyaaradani wax badan ayay kaga duwanay diyaaradahaasi shidaalka kamid aha saliideeda kamid ahayd oo habab traditional ama hababkii hore qadiimiga ahaa ayaa lagu farsameyn jiray haddaba Soomaalidu halkii caalamku 100 sanadood joogay ayay ka hooseysaa oo lama oran karo xitaa la ismana barbar dhigi karo Soomaalidu way joogtaa halkaasi waayo adduunku diyaaraddu xilliga ikhtiraaqay halkaana adigu ikhtiraaqin Jenny inagu inaynu sameeynay ma soo gaadhin waliba wuxuu dhigma ma soo sameyn laakiin se waynu sameyn doono maskaxda way nagu jirtay bal si aynu caalamku 100 sanadood baan dib inoo celiyay bal Soomaalidu 100 sanadood kadib iyadu maxay higsanaysaa muuqaalka si fogey